بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال كسو dhawaada barnaamijkii su'aalaha Shibli iyo Somali Cable isbuuciiba xilligan oo kala ay kala socotaan si gaar ah waxay ka yimaadeen Studio TV-ga magaalada Nairobi ajir xasan aan soo koobi karin ee baa ka siiyo Sheekh Maxamuud Shibli aan kala qayb galaan ka soo gudbiya jawaabaha barnaamijka wixii kale ee su'aalaha lagu soo yaajay ciwaanada barnaamijka gaar ahaan Facebook ciwaankiisu uu yahay su'aalaha Shibli iyo Somali Cable kusoo dhawaada daawadayaal sidoo kale Sheekh Maxamuud soo dhawo shukran wadaw السلام عليكم ورحمة الله وسلام يا شيخ إذا ديا برنامجك إن شيخنا وحنا رجعنا يا أجل حسنات إنه كسيه جوابها وسؤالها إنه قبحيه الشيخ وحاجة تجبر أيام المدة أو السعنية كدب أيام أنا قبلي قالت قالي وحنا كعصدي إني قالت كاسي إيجا حفظه هذا نمر بعض أيام واحد أعضي إن قالت كلام إذا أنك قالي أسأها تمر كده به إما إسعى فيني وحنا جري بالله ما إيو أحذية عن لجنة كواسو لما تود أنك بحي مركا برينتا بلنتاسي كبحتان كأحذية دنب انتلق أي أجلسوا قارئ جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد. dadku axdiya ballan aan dambi aan aday garan inay fuliyaan waajib way. Ilaahay wuxuu awfu bil ahdi. In al ahda kana mas'uula. Ballanta aad qaadaan fuliya. Maxaa yeelay ballantu waxyaabo aakhir la isweydiinay kamid tahay. Muslimiinta Ilaahay muuminiinta wuxuu ku amaanay inay ballanta fuliyaan. oo yuufuna bin nadri. ballantii iyo sharadka ay galaan way fuliyaan wuxuuna ku caayay nabiga calayhi salaam munaafiqiinta inay yihiin kuwaan ballantii ilaalin calaamad munaafiqnimo ay tahay وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وحدة أبلغ قادنا وكبحها هدو هشيس داد لا قالنا هشيس كوكبحها قرآن كنا سيدا وكاليتو طبعا مسلمين بارنتا تلمان وقدي مركو إنهم لا إيمان لهم وعهد يبلنا منهم الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بس قدرت البلنت إلى رنتين وواجب قفكو كما قصبنا أحد يبلين وقالوا لكن مرة دي وقالوا إلى رنتين هذا قفك واجب بيكون تايدين عن هدي وشبيان دي الدم بقليا طبعا دي أحد قال لك قاليا بلنت اللي تشبيه لفته ويكلا وين تاي يوحي كذا شان سامين بوليه هدي شرع قد عاد إنه قفك أحد يبلن قف لك قالوا بلنتين وهيم واحد القوات كاتب بلانتينو إلى waxaa laga doonayaa qofka inuu u sheego oo quraanku wuxuu baray iska badaa musina gaal ballan laga galay heshiis laha hadii aad khiyaano ka baqdo ballantiin wax isdaba maraan ka baqdo fan bidirihim ala sawa meel aad u simantiin banaanka ballantiin waxa tira xilaa wixii ka dambeeyay ballantiin oo ma jirto hawshii way burtay ogow inaad saatiraahdo hatta colaad haday haydiye furimo dagaal inaad sii dhawaato lama ogola ballantu markay sii dhamaanayso muddadii markay muddada dhamaato kadib baa diyaar garowgaaga bilaabi kartaa saas darteed buu halka islaamku gaarsiiyay ballantii iyo axdiga ilaalintooda qofka waa dambaabaya ballantii uu ka baxay ilaahay inuu toobad keeno dambi dhaaf weydiistaa lagu leeyahay hadduu ka dhashay dhib qofkii kale soo gaarayna qofkii kale cafis inuu weydiistaa laga doonaya billahi tawfiiq جزاك الله خير السلام عليكم عبد القادر iyo sheekh waa in salaamaya walaal in ka qaadnay mid taalamida ayaan hawada ku soo marinayna waxaan rabaa inaan sheekh weydiiyo wiil dhalinyaro ah oo caruurteeda eedadooda ay dhashay ayaa guriga igula nool in badan waxa uuna ila noqday sida inuu caruurteeda kamid yahay oo kale marka kama xijaabto marka waxaan rabaa bal sheekh arrinkaasi inuu iba faahiyo in laga baahan yahay inay ka xijaabtay in kala جزاك الله خير الحمد لله طبعا دي عرضتي ايدادود wiilka ay dhashay macnaheedu caruurtay ilmaabtiyihiin waay ama ilmaabtii ilmiyeeda hada si faahfaahayso ilmaha sidaasi haddaan si kale meel kale ayna iska soo gelin maxram maaha inay hadduu qaan gaaro weynaada ka xijaabatana waa laga doonayaa way dhici kartaa hadday adkaato arrintaas oo duruufta wada noolaanshuhu ay adkayso dad muddo dheer tan yar isku soo dhex jiroon waxbuu kala qarsoonayn ay yihiin in qisqasadii Saalim Mawla Xudayfa oo kaleeto de duruuftu kalifto taas in la door bidaa dhaanta in iyadan waxba la sameeynin dadka awraadka isarkaan qisada Mawla Saalim Xudayfa oo ahaa nin Xudayfa oo wiil ka dhigtay buu ahaa kadib quraanku wiilnimadii waa kii buriyay xaaskiisu wiil uu dhalay oo la macaamili jirtay tan isagoo yar waa la isku dhex jiray waxba kale ma kala qarsoonayn sidoo kale nabiga uu timi sallallahu alayhi wasallam rasuulka Ilaahay arrintaas ay haysato waxa haddaan qariyo hadda iiba dhimanba ma jiraan markaas wuxuu yiri ardicihi tahrumi alayhi nuuji buri isagoo nuuji
oo caanahaaga sii wad kar xaaraan noqon xataa rasuul kale waa nin weyn oo gar leh haba ahaada hadduu rabo yidhi marka xaalaad khaasa oo duruufaha iyo daruuraadka ay keenaan oo shabaha Saalim Mawla Xudayfa oo kaleeto haddii laga maarmi waayo inay caanaheeda 5 jeer intii weel loogu liso ama weel loogu shubo la nuujiyo si uu ilkeeda min ar-radaa'a u noqdo xaaladaas oo kale hadduu shabaha way keeni kartaa qof hadii hoos ugu xaajadooda hoos ula socdaana markaa qiimeyn kara intii laakiin sida haddayna ka xijaaba inay iska xijaabato oo sida qof ajnabi ula dhaqanto waa sida saxda in haddii taafu suura geli weydo oo goobta iyo deegaanka uu joogo qofkan ma garanayno duruufta u saamixi karta inay meel kale degaanna ma garanayo waxaasoo dhan adkaadaana tan Mawla Saalim Mawla Xudayfa baa habboon in la qaato laakiin tanna haddaan la qaadanin tanna ay iska xijaabi waayo dambi baa markasta lagu jiray billahi tawfiiq جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله إذن حفظيو داديا برنامج كي شيخ با وحرب الشيخ إنا ويدي الشيخ لبدرك عضود كور رئيس صلاة الصباح موحل الدكانية أنت صلاة الصباح أن لا أدمين مساء وإسكا عادي هدي حلقة صلاة أن تكنيو أمر البكور مريو حدا هدي في حلقة صلاة جزاك الله خير الحمد لله لبدرك عضودي وحالة كذا مركي صلاة صوق شكدب أنت هذا صلاة الصباح تكن salaada hada jamaacad tagayso intaadan tukan baa laga rabaa dad kaliya guri iyo meel kale ku tukanaysana intaadan tukan baa laga rabaa salaaduna ay soo gashay hadii xataa hurdo kula tagto iyo halmaan kula tago iyadana markaad xasuusato ama aad soo toostaa tukan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu habeenkiis iyagoo safarta xilli dambe seexdeen qoraxda soo baxdo bay hurdo ka tooseen nabiga alayhi salaam meeshii waa la weysiistay meeshina waa laga yartay durkay labada rag waa la aadaamay labada ragcadood sunnada qoraxda halkaas ay joogtaa hurda la tagtay labada ragcadood subax ka horeysay uu tukaday saxaabaduna way tukadeen kadib baa la aqibay oo salaad subax la tukaday marka salaada waqtigeedu inay soo gasho salaadana aadan wali tukan waay طبعا way dhici kartaa qofku inuu mar dambe baraarugo salaadii jamaacada lagu jirana uu ka gaarsiin waayo hadduu ka gaarsiin waayo salaada kadibna waa tukan karaa barqadina waa tukan karaayo nahyiga soo geli maayo salaadaha sabab kale ee kamid tahay billahi tawfiiq جزاك الله خير السلام عليكم وحرب الشيخ إنا ويديو سؤال كميدا معجزوين حليدا قار كدع الدنكا كواسو أي كميتاي إن لأركو هالقف أو الله مدح له مركا الشيخ وحرب بالقاب كاسي لولا رقم يقف كاسو كلي هدي أو كان جارو إسلام مركا لجارو حلقي لجورسن لها لبي جديد جوحو هذا با سيد لولا معامل ثمية هالقف أو الله مدح له مركا guurka la gaaro masida hal qof oo kale ayaa waxa lagu mehernayaa mase xorolo dhaqameed sida laba qof oo kale جزاك الله خير الحمد لله طبعا عبد القادر مسألة عصب معها الفقه الإسلامي أحكام الشريعة يا علماء المسلمين مسألة عصب معها لما مضح كلي أنا ما هي فقاعد إنه حب بدن كان اللي جرين حبنا ديرات كان ديرات شرته لوك ديرات شري كرتا حبنا ترن كور ديرات شري كرا madaxo laba noqdo dheeraad ah jiri kara waxay ka hadlaan ahkaamta ka dhalanaysa طبعا mas'alada madaxaad aan ka hadalno saa'ilku inuu soo weydiiyo waxa la isweydiiyaa koow ka soo bilaabata guur beentaan la gaarin qofkii markuu weyseysanayo laba madax iyo laba waji haduu leeyahay kaabu dhaqaya keeba weysida kaga filaanaya ومثلا markii horeysay baa la soo bilaabanaysa qofka cibaadadiisa isagoon qaan gaarin baa duu raba inuu cibaadeysto waxa timaada qofkii inta marka la soo dhaafo dhaxal baa yimaada oo baab nikah ka horeeyay fiqigana shaafici tartiibkiisa ma hal qof aan ku dhaxlayaa mise laba qof ku dhaxlayaa su'aalaha fuqahaada inuu keeneen baa kamid ah ruuxii ma hal qof baa loola dhaqmayaa mise laba qof aan baa loola dhaqmayaa waxay sheegaan athar aan inta badan sugnayn oo xilligii Umar in loo keenay nin laba madax leh xilligii Ali in loo keenay nin laba madax iyo afar lugood iyo afar gacmood isku yaala laakiin inta dhaxda iskaga yaala الحافظ ابن كثير هذين حسوستيدو يا ذاكرة حسوستيدا أنا وحي خلدمين في البداية والنهاية وحوش كشيكي دعدة تنا وكاليتا ولا سو جارسي يجوا بدن وفرق علمية فقهاء أي آذين كدبنا
ninkii dhalay ilmo yaroo waa laba la yidhi laba madax iyo waxbuu leeyahay subaxii dambe loo keenay ilmihii oo meyda anu meyd baan arkay laakiin markaan arkay laba qof oo isku dhegan bay ila ekaayeen buu yidhaahdaa xaafid ibnu xajar dhacdooyin saasoo kaleeta markuu soo guuriyo waxay u soo guuriyaan inay yidhaha min badiici sunci illaahi ilaahay abuurkiisa la yaab kale ka midta suudan wuxuu abuurayo waxayna rumaynaysaa qowlahu tacaala huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa minka hooyadin isagaa idinku sawiro idinku abuura sidaa uu doono kuu raba laba lugood afar lugood buu yeeli kuu rabana afar gacmood buu yeeli kuu raba laba madax buu u yeeli wax dhici kara wey fuqahadeenu marka waxay ka wada hadlaan axkaamtaas oo dhan masalada waa isku hal masalo guud ahaanna waxaa la leeyahay qofkani ma hal qof waa mise laba qof labadan xubnood ee lamaanaha noqday keliyaha ahaan jiray ama labada ahaa ee afartan noqday ma hal xubin baa labadan gacmood ma hal gacan baa loola dhaqmi mise laba gacmood baa loola dhaqmi hadday intan dhexdaan iskaga yaalaan beerkii iyo wadnihii iyana wadaagaan haddana way badantaan u malaynayaa laba ilmood oo isku taalloo dhalatay baa la kala goynaya waagaaba saan bay dhacdooyinka u jiri jireene meediyey isgaarsiinaya meelo lagu diiwaangeliyo oo badan ama sawirro laysu soo gudbiyo oo badan baan jiri jir intaas haddaan kaga soo baxo dabcan fuqahadeena waxay u badan yihiin see lagu hal qof in loola dhaqmayo haddii hal qof noqon karaan see lagu ogaan karaa hal qof inay noqon karaan tijaabooyin badan bay keeneen waxay yidhaahdaan xilliga uu seexdo waa la fiirinayaa ma hal mid buu ka quurinayaa mise laba ka quurinayaa hadduu labadaba ka quurinaya laba madax laba qof oo isku taalla weeye laba nafood weeye qaarkood sida cali laga wariyo mar waxay yidhahdaan waa la seexinayaa marka mid baa la toosinayaa hadday wada toosaan markuu indhaha kala qaado wada kala qaadaan hal qof wey hadduu midna sii hurdo midna kala qaadana laba qof ayaa laga dhigi karaa waxay yidhahdaan dhacdada guurka su-aasha waxaa guurka gaar ahaan ku socotay xilligii cumar baa loo keenay laba madax le dhexalkiisa kadibna guurkiisaa loo keenay cali iyo rag lamidoo aharka waxoogay dacfi baa ku jira cali iyo rag lamidoo u yeeray bay yidhahdaan yoruba arrintan ka taliya cali wuxuu yidhi baa la yidhi aniga lama quman in loo guuriyo de laba qof baa isguursaday qof saddexaadna cawraadkoodii buu fiirinayaa waa ag taagan yahay meeshii la qaawan yahay fiirinaya laakiin fuqahadan waxay u badan yihiin inaanay dhici karin laba qof inay noqdaan oo xukumkii hal qof un loola dhaqmay hadday dhaxal noqoto hadday cibaado noqoto oo weysadii hal mid hadduu dhaqa ay ku filan tahay afartii gacmood hadduu laba dhaqa labaday dooniba dhinacana mid ka dhaqa dhinaca mid ka dhaqa ay ku filan tahay axkaamu shakhsi alwaaxid in la siiyo bay fuqahadeena mutaakhiriinta intaan arkay fuqahada madaahibtana waxa u badan ka hadla fuqahada shaaficiyada way raxmatullahi calayhim jamiican naam jazaaka allahu khayr assalaamu calaykum sheekhu waxaan weydiinayaa su-aal la xiriirta xaaska ayaa sheekhu inta badan waxaa dhacdaa si amar la-aana in ay su-aalo u weydiiso culamaa udiin aniga oo aan raalli ka ahayn marka arrinkaasi miyay ku dambaabaysaa mise ajir ayay kelaysaa jazaaka allahu khayr alxamdulilah dee wixii diinteeda ay u baahan tahay culamo weydiisay idan uma baahna haddaynan bixitaan ahayn ama qoraal la diray ay tahay diinteeda ugu baahanta xaq iyo baatil inay kala cadaysata ay doonayso xaraam iyo xalaal inay kala ogaata ay doonaysaay uma baahna idanka ninkeeda masalada cilmiga iyo waajibka barashadiisu dabcan dee haddii nabiga alai slam way umi jireen haweenku hinda bintu cutba u timid ninkeedii abu sufyaan buu ahaa waxaad rasuulkii abu sufyaan waa ninkaa taqaan xoolana waa haystaa waxna kama baxan waa gacan adag yahay isagoon ogeyn haddaan ka xado aniga ilmahayga biilkayaga haddaan ka xado ma dembi baa wuxuu ihi maya nabigu khudii maa yakfiiki waladiki isagoon ogeyn qaad u yidhi dabcan maynan ogeyn nabi xasan gabar baa u timid nin bay kala tageen saddexdii dalqood baa u kala dhammaatay nin kale ay guursatay ninkii bay dhaliishay gogoshiisa waxti rasuulka ilaahi ninkaas ay qabay saddexda nooga dhammaatay ninkaasaan guursaday meesha waxba kuma hayay tiri maa macahu ilaa mithla hudbati thawbi meesha waxaan maro faygeed baad moodaa sida maradu u jilicsan yahay wixiisuba nabi wuxuu yihi waan ku fahmaya inaad ninka hore ku noqotaa rabtaa Soomaali la xataa tadwiqi cusaylata wadiqa cusaylata ninka way ka dacwoon kartaa cibaadaadkeeda iyo tahaaraadkeeda ay weydiin kartaa xuquuqda lagu leeyahay iyo waxay xaq leedahay bay kala cadaysan kartaa axkaamta mucaamalaadka iyo dariska iyo qaraabada iyo raximka iyo aakhiradeeda iyo adduunkeeda iyo cibaadkeeda weydiin kartaa cilmiga baratana hadday ku dhaqanta ajir bay ka heli idan uma baahna inay su'aal weydiiso ama ay mas'ala cilmiga ka akhrido
uma baahna hadday bixitaan noqoto meel culimo joogtaa la aadaya bixitaanka idan bay u baahan wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayra assalaamu calaykum magaciigu waa ismaaciil waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo cadaabu qabriga iyo arrimaha la xiriira ma waxaa jira axaadiis iyo aayado gaara oo kusoo aroray waxaa jira culamaa diinka qaarkood oo shaki arrinkaasi iga geliyey marka waxaan rabaa sheekh inaa i faahfaahiso jazaaka allahu khayra alxamdulilah sax qur-aanka iyo sunnadu way sheegeen qabriga kuwa aad sheegtay culamaa diin baa ay shaki geliyeen culamo ma kadaabiin beenaalayaal way qolyaha sunna diidka way asalka waxaa iskale baslaa inkirkeeda nimankii hore ee mutakalimiintii hore ee qulaada ahay diidi jiray haddana waxaan ku naqaanaa laba taa'if iyo laba kooxood niman xisbu taxriir iyo la yiraahdo de Soomaalida aad ugu badna marmar waa laga helaa iyo qolyaha junuud ibliis ee sunna diidka la yiraahdo quraanka Ilaahay ku sheegay wuxuu yiri markii dadkii la cadaabay aal fircawn iyo ka hadlayay annaaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-saa'atu adkhilu aala fircawn ashadda al-'adab annaaru 'adab yu'raduna 'alayha loo bandhigayaa oo la tusaya la dhalansiinaya la gelinaya ghuduwan subax iyo 'ashiyyan galab subax iyo galab wa yawma yaqumu al-ashhad maalinka qiyaamadu timaadana waa la soo saaray waa la cadaabaya daba cadaabka galabay ma aha kii qiyaamada ma aha wa yawma taqumu as-saa'atu adkhilu aala fir'auna ashadda al-'adab baladi waa markay qiyaamadu timaado taas inta ka horeysana annaaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan sunnada nabiguna waa mutawaatir sallallahu alayhi wasallam markii qabriga la tagay in la su'aalayo qabrigu inuu ciriiri ginay Sa'd ibn Mu'adh waa kan nabiga alayhi salaam oo yiri nabigu fasaleetiga Sa'd ibn Mu'adh khayru min ad-dunya wa ma fiha haddana wuxuu yiri law kana ahadun qafadu ka badbaadi laha qabriga qabashadiisa lana jaa Sa'd ibn Mu'adh baa badbaadi laha wuxuu sheegay nabigu qofka inta la soo nooleeyo isagoo dad shanqarkooda maqlay in la weydiinayo waa inuu la ismaac qaracani caali wuxuu nabigu sheegay qabrigu in wax lagu weydiinayo thabbitu Allahu alladhina aamanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya waxa kamida ithbaatka qabriga lagu weydiinay sanadka ku fasiray sallallahu alayhi wasallam waa kii dhigi jiray markii qofka la soo wax yar suga fusalu lahu tathbita fa innahu la yusal ilaahi u weydiiya in la sugo hadda la weydiinaya su'aasha soo shanqarkeena maqlaya baa la weydiinaya sadarteed markuu soo maray laba qabrina oo qoyaro marka la asana waa kii innahu la yu'adabani kuma yu'adabani fi kabir wala adabaya adab wax way dambi wax weyn iska ilaalin waa in loo macadabayo ama ahaduhuma fa kana yamshi bin namima dadku isku dirdiri jiray midkood midka kana kan la yastanzihu min al-bawl kaadi iska ilaalin jiray iska wadaan jiray kaadu to kaajo soo iska nadiifin isku celin jiray marka sunnaduna waa mutawaatir yaqiin away quraankuna aayadaas aan filay suuratu ghafir inay ahayd buu quraankuna ku sheegay si guud Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala nabigiisu wuxuu noo sheegay ma inta qaan al-hawa inuu la wahyi yuha waxa kale oo la inay yiri wama ataakum ar-rasuulu fakhuduhu qaat marka intaas oo dhan dadka aanay u dhaadhicin way dadka la wareegaya cadaabul qabri iyo ma jir inkaarka cadaabul qabri la inkaraay kufri waay qofku cudur daar ma leeyahay ma loo eegayo waa qofka markaan xukumayno ama quraanka iyo sunna mutawaatira waxa ay sheegeen la inkaraay min al mukaffirat waxyaabaha lagu gaaloobay kamida cidii iyadoo og on shubha ta'wiil iyo shubha cudur daar lahayn inkirtaay imaamadu doonay qabi uu gaaloobay diintu ka baxay billahi tawfiiq jazaaka allahu khayr assalaamu calaykum waxaan salaamayaa sheekha iyo daddiyaha barnaamijka magaciigu waa maxamed axmed waxaan joogaa waddanka jarmalka waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo su-aal la xiriirta sheekho mobile ayaan rabay in aan gato marka waa qaali hal marna lama wada iibin karo marka waxaan doorbiday inaan bil walba xoogaa dhaqaale aan dhibo marka lacagta marka saa loo qiimeeyo waxay ka badanaysaa lacagtii hal mar laga wada bixin lahaa haddii la iibsanayo marka waxaan rabaa inaan bal kala ogaado arrinkaasi wuxuu ugu noqonayaa maadaama aan yaryaraynayo oo lacagtan ay ka badnaanayso intii hore ribo mase waa iska caadi jazaaka allahu khayr alxamdulilah abdiqaadir waa inta hore dhib ma laha wuxuu inuu kaash iyo hadda aad wada bixinayso iyo in yaryarna aad u bixinayso inuu kala qaalisanaada dhib ma laha waana buyuucdan carabiga buyuuc taqsiidka lagu yiraahdo yaryar loo bixiyo taas mabda dhib ma laha laakiin waxaan ku aqoonay wuxuu xageen joogaa ninkan Germany ma joogaa wadamadan galbeedka iyo kuwa la midka waxaan ku aqaanaa muddada sanad ama 2 sano lagu qabto ama sanad iyo bar lagu qabtay hadii muddada qofku duruuf kasta ku iman karta shaqadii baa ka dhamaan karta isagii baa xanuunsan kara duruufo culays kala soo fuuli kara muddadii hadday kula dhaafto inay lacagtii badato interest ku fuusho sadarteed waxa arki jiray
markii la soo dhajinayo waa free interest ay ku leeyihiin ribo ma laha 12 bilood 24 bilood 18 bilood waa free interest bay ku dhahayaan waxay ka dhigan tahay inta haday dhaafto interest iyo riba ku fuulaysa haddaan la qorinna warshishada la saxiixo Soomaalidu dadka wax ma akhriyaan qoraaladan farfara badan ee waraaqaha ku lifaaqan bay ku qoran tahay dad hadad ku bixin weeyeen lacag ku fuulayso heshiisku saahadu yahay xaraan way ma banaana heshiisku saahadu yahay ma banaano inaad waafaqdo haddii aan waqtiga ku bixin waayo interest baan raali ku ahay lama ogola laakiin taa dambe haddii inta waqtigii haday dhaafto interest baad bixinaysa aynan meesha ku jirin inta hore dhibaato malaha billahi tawfiiq جزاك الله خير السلام عليكم بعد warbaahinta waan salaamaya sigaar waxaan salaamaya sheekh waxaan joogaa Mareykanka magaciigu waa ayaan sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah sheekh oo nin ayaan leeyahay ninkaasi aad buu nafsadeyda iyo tan ciyaalkaba ugu roon yahay laakiin aniga uma roonay isaga inta badan waxaan isku dayaa in aan ka fogaado marka aan arrinkaasi bal sheekh oo iga waran may banaan tahay in aan ka fogaado ama ba aan iska furo جزاك الله خير alxamdulillah horta inta reer la yahay inay dayacdo xuquuqda ku leeyahay waa dambi oo ma banaana ka fogaanshuhuna waa dambi ka fogaanshuhu waa dambi uma rooniyo ma daryeelana waa dambi reerku marka la isguursado dadka iyagu waa weyn bay isu yimaadeen dan iyo maslaxad baana lagu shirkoobay markii waxa kale oo dhan laga soo tago waxa runtii dan iyo maslaxad baa la wadaagay danta iyo maslaxadda haddii la kala waayo qof walba dantiisa iyo maslaxadiisa meesha ka jirtay inuu aado buu leeyahay uu ku mahadsan yahay isagu iyadii ilmaha bay inuu roon yahay laakiin iyadu way ku dambaabaysaa dambi baana ku soconaya roonaansha la'aanta xuquuqdiisa haddaynan ilaalinin inta reer iyo xilo leeyahay waxaa timid haddaynan ilaalin karin maxaa u furan inay furitaan dalbataa u furan nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii Thabit ibn Qays ibn Shammas uu qabay oo rag ajiladii saxaabada kamid ahaa nabiga uu tii sallallahu alayhi wasallam waxa rasuulka ilaahay inni akrahu al-kufra fi al-islam ana muslina inaan xuquuqdii ninkay gudan waayaan ka baqayaayo moral iyo niyad uma hayo ma gudan karo la ana wala huwa ma isdhahay waqtan ma doonayo ma dalika waxay ku daraysaa la aibu alayhi fi din wala khuluq diinti sana kuma durayo dhaqan wanaagiisa iyo dabeecadiisa akhlaaqsana ma durayo laakiin niyadna uma hayo waxaan arkan isagaan u nacba nabi wuxuu yiri xoolo badan buu ku siiyay beer badan buu ku siiyay inuu ku jecelaay muu celin kaasay tiri ha saybu u yeeray markay ka dhabtahay arkayadii wuxuu yiri beertaadina qaada gabadhana iska fur masalatul khuluc meeshii ku soo degtay waa inaad khuluc ku yimaadeen nabi wuxuu ku dabaqay sallallahu masalada gabadhaasi dabeecad nin kama cabanaynin dunyana kama cabanaynin diin xumara kama cabanaynin laakiin damiirka iyo quluubta dadku ilaahay baa hay waxna waa jeclaysi waxna way jeclaataan waxna way nacdaa in xuquuqda la ilaaliyo la gutay rabitaanka qaybkan walidaalka saanka quraanka markuu reerka laga hadlayo waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma rabitaan inuu jiro tazawwaju alwaduda alwaruda لم يرى في النكاح مثل المتحابين في النكاح لبا استعمال حقوق كغا فيعيه ما جيرو hadaan rabitaan jirin qofku way saartay in xuquuqda ninka gudan karin intay dambaabi lahayd inay fasax dalbataa u fiican laakiin inta kadib waxaan ku talin lahaay hooyo carruur wadata laga yaabaan carra gaal inay joogto iyadii ilmaheedu mar walba daryeel bay u baahan yihiin haddii reerkaa dumiso inayna badiil la helin daryaalkiina weydaa laga yaabaa marka waxaan dhihi lahaa ilaahay inay barido reerka dumintiisana inay ku degdegine wixii xal ah kale bal wax lagu soo dabaali kara ay ku dadaasho dadka aan khayrka la joogay taacada aqliga iyo garashada iyo daacadana ay kaalmaysatana waa kula talinaa laakiin dariiqaas waa dariiq sharciga furan hadii damiir iyo niyad liisu waayo billahi tawfiiq جزاك الله خير السلام عليكم وسلام يا شيخ مغعيغو وامنا waxaan joogaa magaalada Muqdisho adiga iyo sheekhu waa in salaamaya oo ka qadnay walaal waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo su'aal ah sheekhu waxa jira shirkado sigaar loo leeyahay kuwaas oo ka shaqeeya waxa loo yaqaan iibinta tooska ah marka ay ka mid noqonaysana waxa laga rabaa lacag gaaraysa ilaa iyo $30 si aad ku diiwaan geliso kadibna $200 ayaad ka sameynaysaa
iibkaasi ayaa sidoo kale waxaa jirta in lagaa doonayay in sidoo kale dad kulamida adiga aad soo wado kuwaas oo iyana aad ku leedahay lacag markaas commission ah oo gaaraysa 38 commission ahaan ilaan waxaad keentay ama ba ku soo korisay shirkadaasi waxaana dhacaysa hadii marka ay badato soo kordhintaada ama darajadaada waxaad helaysaa lacag gaaraysa ilaa $1,500 iyadoona ay ku sii dheertahay commissionkii aad qof kasta oo kamid dadkaas aad ku leedahay marka maxaaran ba lacagta aan companygaas uga qaadanayo qofka commission ahaan laga siinayo arrinkaas ayaan rabay sheekho bal waxa ka jira inaad ifafayso jazakallahu khayra bismillah alhamdulillah abdu qadir ganacsi xaaraana way waana ganacsi nuxurkiisu yahay musuqmaasuq iyo xisdaba maris ganacsigani dhowr iyo 70-kii mise dhowr iyo 80-kii uu ka soo bilowday North America Mareykanka soo bilowday markii dambena waa la mamnuucay kadib Yurub uu soo wareegay wadamada waaweyn waa la mamnuucay kadib Afrika iyo Carabta iyo Asia uu soo wareegay waa koox qowleysata oo badeecad iyo wax soo saar lagama ganacsado membership baa laga ganacsadaa wax laga ganacsada runta laga ganacsanayo membership-ka waay soddonkan lacagtan hore la bixinayo way kala duwanaadaan markay qawaaniinta dunidu membership-ka in laga ganacsada mamnuucday iyo xubinnimada ba waxaa loo bedelay waxaan wax soo saar ahayn laakiin lagu gabado ku yiraahda qalab tacliim soo saar ku electronic yiraahda ku dawo yiraahda ku alaabka massage yiraahda ku alaabka buug yiraahda waxani waa cover wax isku dadayo lagu qarsado dhumanayo way qawaaniintii baan ogolayn in xubinnimada laga ganacsado sadarteed sharikadahan sanad marka la joogo kuwa cusub baa soo bax kuwii hore ma jiraan hadda sharikada wax soo saar yihiin sharikada jira oo baaqi noqda oo raad yeesha oo store iyo saldhig yeesha lama helo inta hadaan kii joogay 10 sano u dambeysay 20 ka badan intana soo martay suuqa ka baxday 20 ka badan waxa weeye waa dad koox oo shaqaysta wadamada kala joogan tan waxoogay markay dadka ku dhacaan bay tii xiraan magac kale ay bixiyaan wadamadii dadka joogay baa isbedela kii Uganda jooga kii la keenaya kii joogayna wax Tanzania la geenaya kii Tanzania joogayna Zanzibar baa la geenaya kii Zanzibar joogayna Suudaan baa la geenaya wadamadii shaxba lagu kala wareejinaya willa bal daba galo idin warbaahinta tihiin 10 sano u dambeysay imisa shirkadood oo sidaas soo baxday haddana suuqa ka baxday taamida koowaad mid labaad sharikadahan wax soo saar kama shaqeeyaan waxa ku garan shirkadu horeysa aragta website-ka leesiya ku dheh website-kooda akhri marka waxay xayeysiinayaan ay faahfaahinayaan ay si fiican u sharxayaan waa xubinnimada iyo shabakadkan saddex isu daba jooga way sharikada wax soo saar oo dawo iyo qalab soo saaraya warshadoodii sawirkoodii wax soo saarkoodii meelaha ay geeyaan istooradooda bay xayeysiiyaan kuwana website-dooda waxa ruuxinta laga ganacsanaya halkaas lagu sharxaa waa xubinnimada iyo isdaba joogga way saas darteed wax soo saarkan waxaad garanaysaa inuu yahay wax dawladda iyo qawaaniin laga gabanaya dadkana lagu sareeyo way inta waxa dheer ogaanaysaan sharikadaha waxaan ka shaqeeyahay 6% baa faa'iido 94% dadka xubnaha way khasaaraan sheekada loo dhisay lacag baad ku heli leeyahayna waa sheeka beena waxa lagu leeyahay adigu 3 qof keen 3 mid walba 3 keeno haddana 3 kale mid walba uu keenay 3 kale ha keeno aakhirka waxa lagu keenayaa 3-4 bilyan qof oo xubnaa adduunkan ma dhici karto واقع معه براكتيكال معه هل شركة wax soo saarkeeda 3-4 bilyan dadka caalamka boqolkiiba 80 ama 90 ama 70 inay shirkada ka macmiil u noqdaan wax baraagta ma laakiin qofka intaas dad gaadho intaas oo lacag lagu dhihi kiya joogta ma badana dadka intaas 40 milyan baa waxa lagu geenayaa kiya ka soo qaad 40 milyan baa leeyahay suuragal ma hal shirkada wax soo saarkeeda 40 milyan ba كتبان ورتك لي مسا عرور مسا وايل دقوبيا مسا باديه joogtadan gaareen مسا shirkada kala macmiilo مسا dan arkiba kalin laakiin shaxdani qofku markuu arko halka gaar lacag badan baad ka heli suu leeyahay waxaan qaana dad badan oo halkan oo daayay intaan diray galeen ku khasaaray waxaan taswiiq shabaki carabiga dadka talabada inay raadiyaan raba
التسويق الشبكي يا التسويق الهرمي ولا هذا قرية الإنجليز كانوا وحيد هذا نتورك ماركتينج يا بايراميد يجري هذا توحن فريا تو 7 كمية هيد كيا بان هبين كهذا تاني قصص كي تاريخ ذي شركات بس سيدي دي ما كان إلهي وحو قدر الصبح جورنال كهر لين كودنك وحكو قرا صدم يا 5 بليون إن لو دعي لعق تسكين جديد وحتى وزير كمالية دي أمس كمان يدو هذا ملاينا يا حافظي ساي لقطة لقش دوري 5 بليون بعد الله قاعد على لعق تس ومسخ قاس ولذلك هذا جوجل جرايسان انت صو محكمة ضد إنجليز كي أمريكا كسعودار كيسان انت صو قرآن علمية ذو ماستر PhD ولا قد دياري بعد أركيسان waxaad arkaysaan World Bank-ga iyo IMF waraaqahay soo saareen oo tuugo way leeyihiin fraud business way leeyihiin marka dadku waxaad yeeshaan waxani waa musuqmaasuq wax isdaba maris tuugo iyo qalin shubata way marka waxa ganacsiga noocan xaraam weeye iska ilaaliyaan dadku billahi tawfiiq jazakallahu khayra sheekh maxamuud aad waa maasantahay qaybtii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay assalaamu calaykum marka waxaan salaamayaa sheekha waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekho anoo sooman hadii aan dad gaala oo aan dalkooda ku noolahay isla markaana aynu qaarkoodna ay yihiin macallimiin wax idhiga oo dumar u badan isla markaana qaawan wax dhibaato ay ma soo gaarayso soonkayga arrinkaas ayaan rabaa inaan ogaado jazakallahu khayra alxamdulilah dee soonku jabi maayo laakiin ajirkiisa waxbaa gaaraya mar kastoo qofku dunuub iyo macaasi uu sameeyo ilaan cawradan xaaraamteed eegaysay waa dembi kastoo intaad soomantahay aad samaysaay soonkaaga ajirkiisa wax u dhimaysaa طبعا laakiin soonka jibin mayso nabigana case xadiidka barar waxaa ka sugan man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilahi xaajatan fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkii aan dembiga fal iyo eray aan iska daynin isagoo sooman soonka ilaahay ka cabsi waa loo soomayo lacalakum tattaquuna hayde ilaahay waxa ugama baahna inuu cunno iyo cabitaan iska daayo cunto iyo cabitaanka waxaa loo deynayay inay damiirkaaga iyo dhaqankaaga xakamayso alla ka cabsi ku beerto haddaad maanta oo dhan xantii iyo waxaan oo isaga jiraysaay lama ogola waa dembi baad ku jirtaa soonkii waajibkii uu kaa dhici laakiin ajirkaagu may ka go-an tahay billahi tawfiiq jazakallahu khayr su'aasha ugu dambaysa toddobaadkan barnaamijka ayaa waxay tahay sheekhu ma bannaan tahay in la xanto dadka gaalada ah الحمد لله مايا حنتو دغن قف مسلم معه وانا وحول ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء قف مؤمن كان معها قف لعنات بدن او درس بدن قف افحن معها نبي وحنا فريق مركز صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت قال كم يا هديت هي دد ان لوغا دغيو اما قال نمدا حماتده laga sheegayo ama xumaata uu ku sameeyay dadka iyo dhaqan xuma laga sheekeynayo waa gaar taa qofka muslimka ee sameeyay ba banaanta in la sheego oo dadka looga digayo laakiin in la iska caayo oo wax laga sheego oo la iska xanto bila macnada ah diinahan ma banaana gaalku daris buu kula noqon karaa darisku xurmo iyo ixtiraam iyo xaq dhowr buu leeyahay in la xanto oo la xumeeyo ma banaana suxba iyo shirka aydan dhaxmari karta صادرت قفك قال كي عرضي سو معصوم وي هدوسن حربي هاي ninka dagaalka ka dhaxeeyay isbedilayeen waa baab gaar isaga laakiin gaalka ama dhimmiga ee muslimiinta ku hoosnool ama ahdiga ee nabad ku yimid wadanka muslimiinta iyo waxyaabaha la midka ah taadiga xadgudubka naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa in lagu xadgudbaayo من ما بنان بالله توفيق جزاك الله خيرا سؤال سيد دميس داوديال تضافكم برامجك سؤال شبلي Soomaali Cable ajir xataa aan soo koobi karin ee baa ka siiyo Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli ayaa barnaamijkan kala qayb galay halkan ka soo gudbiya jawaab barnaamijka wixii kale ee su'aalaha ku soo gaajiyay ciwaanada barnaamijka gaar ahaan Facebook ciwaankiisu uu yahay su'aalaha Shibli Soomaali Cable dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu ahaa Cabdullaahi Axmed Cali inta dib u kulmi doono sidaa inoo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jazakallahu khayran